روحي أن علمذو ضبط روح من عقن عدكودان تمن أراك سيدادي عليسا كليبا عويا dad waxaa jirta asxaab ah oo adiga asxaab kula ahaa oo dhihi jirtay fanka kuma soo baxaysid fanka talent uma lihid hiba uma lihid balse kadib markii heestaada ugu horeysay ay qarxaday iyagu ka dhex raadiyay fiyuus jacaylo maxaad dhibkeentay maxaad dadka kala dhantaashay maxaad niyad dhowrsanaydyo qalbiyo badan dhaawac yeeshay jacaylo qalbiyo badan dhaawac yeeshay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulanti wanaagsan daawadayaal halkan naga daawanaysan wadagalka YouTube-ka ku leenahay Jaw Official waa wiilkiini waa walaalkiin waxa idin leenahay mar kale iyo soo noqod wanaagsan caawa barnaamijyadii hore waa ka duwan yahay waxa wadnaa barnaamij aad u xiiso badan barnaamijka waxa la dhahaa waa kafta kafanka barnaamijka waxa caawa marti noogu ah walaasheen Dejiye Xasan fanaanad Soomaaliyeed hadartaana ku sugan magaalada Garowe Dejiye ku soo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo channel-kaaga markaas barnaamijkan sidee u aragtaa barnaamijka kafta kafanka waa galahay walaal waan ku dhawahay waayahay haddaan su-aasha ugu horeysa kugu bilaaba waa tuma Dejiye Xasan ama wax yar nooga tataaba Dejiye Xasan kulay Dejiye Xasan waa magacaaga ma magaca afgarashada baa mise magacaaga saxda iyo taariikh nololeedkaaga kooban adoon si dheereenin horta marka ugu horeysa waan salaamay magacayga waxa la yiraahdaa maxay ahayd Dejiye Xasan Maxamed magacayga dhabta way Dejiye ma aha magacaan la baxay waxaan ka soo jeedaa ama maxay ahayd inaan ku dhashay magaalada Boorama gobolka Awdal waxbarashadeeda xataa halkaas aan ku soo bartay waa kaas waa su'aasha labaad hadii aan ku weydiiyo shakhsiyaantaada goorma ogaatay inaad heesi karto ama aad fanaanad noqon karto والله كما دهي كرو وقتيgaas ayaa maxay heedani aan ogaaday inaan fanaanadahay ama aan heesi karo anoo heesay ma sarkay haddaan barnaamij ku soo noqono Dejiye waxay ku leedahay heesta kaliya nacweeya oo ah hees one week ka yar social media ku qabsatay qaybtiisa TikTok oo ah hees saameyn badan dhalisay bal heestaasi sababta keentay iyo in aad kulay dadka fanka marka ay ku soo jiraan waa dad sanad ku soo jira oo heesahooda sanad ka bacda qarxan balse adigu waxaad talent u yeelatay in heestaadi koowaad inaad ku qaraxdid bal heestaasi adoo wax yar nooga tataabanay bal heestaas ereyga kamid bal wax yar noogu luuqay horta heestaas markaan soo qaadiyay waxa uu soo qaadiyay qisadaba igama ahayn fanaanad ku noqo waxaan gudbinayay maxay ahayd inay fariin haddii aan wax yar niga taabtana ruuxii aan calmado dabad ruux man cugan cidkudaan taman arag sidaadii calaysa kaliiban caweeya nafbaanahay cishota darata nafbaanahay ciqaabanowga nafku ciirsanaysa oo ku cuskanaysa miyaa laga caraabaa akaas أحيا عود waxaan dhigi karaa kanay cod maahan magac kale loo bixiyo dabcan horta ilaahay ku barakeeyo codkaaga macaan su'aasha xigta hadii aan u soo gudbo markii aad fanka soo galeysay Dejiye caqabado noocee ayaad kala kulantay ama caqabado sidee aad kala kulantay saan ku sheegay markaan aan adu heestan ugu horeysay weey kulay markaan fanka soo galayna isma oran karo waxba ka hor imid ama waxba kugu adkaa sababta hal habeen baa maxay ahaydani ereyadana la sameeyay muusigana la waxeeyay aanan qaaday codkina la iga qabtay xataa dubitaankeyga ma ahayn wax igu fudud sax oo waxaan ka wadaa igu ma ahayn wax igu adag aad u fududaa markaas ma oran karo maanta waxba ka hor imid oo kugu adkaa markaas taas soo qaadisay okay haddii aan kula yara kaftamo jacaylka maxaad ka aaminsan tahay adiga ahaan
kale waxaa ka aaminsanahay inta wax fiican waxa wanaagsan inuu yahay ka aaminsanahay jacayl su-aasha xigta haddii aan usii gudubno waxaa jirta markaad fanka soo galaysay ama aad fanka ku soo biiraysay dad waxaa jirta asxaab ah oo adiga asxaab kula ahaa oo dhihi jirtay fanka kuma soo baxaysid fanka talent uma lihid hiba uma lihid balse kadib markii heestaad ugu horeysay ay qarxday iyagu ka dhex raadiyay fiyuus ma jirtaa hees noocaas dad noocaas oo kale kulay markuu qofku fanka uu soo galo cadow iyo saaxiib iyo taageeraba inta waa uu yeeshaa horta anigu intaanan fan soo galin marka kulay dareemi kartaa marka asxaab leeyahay ama meelahaas sida loo baxo waan iska heesaysan jirnay waqti ama qaac iyo waxaas baa samaysan jirnay marka horta weli ma arag ilaa iyo hadda ma arag maxay heedanay qof ile yani codkaaga ma saan weeyaan ee iska daafanka ama maxay heedanay codkaaga uu dee ma macaana iska dhaaf ma arag sababtoo qof walba waxaan kala kulmahaa codkaaga aad buu macaaya fanaanad noqo anoon xataa noqon baad idin jiray fanaanad noqo marka waxa caqabada dhankaas igama hore noqon صح waa tahay waa maasan tahay hami intee laga ayaad ka leedahay inta aad fanka ku guda jirtid ama hami intee laga ayaad is leedahay ka gaar hibada fanka horta ma hadda mise markii hore markii hore ma xiisayn jirin maxay heedanay fanka laakiin hadda waxaa leeyahay kalay xaraweena ka gaaro halkii loogu talagalay waa tahay horta qof ayuu dhageystaa heesihiisa hore haddii aan dib u noqono qarni sanadadii hore fanaaniintii hore oo dadkii hore ahaa maadaama aad tahay gabar fanaanada fanaaniintii hore yaa taageertaa ama aad dhageysataaba ama codkiisa markii aad maqashid aad ku raaxaysataayo si wacan aad u dhageysataa horta fanaaniintii hore kuma oran karo maxay heedanay heestaasaan jeclahay ama fanaankaasaan dhageystaa sababta ma dhageystaba laakiin fanaaniinta hadda waxa ugu jeclahay xamdi kuweyn oo hadda iyadna fag ka fadhiisatay waskeedii baan kusoo socdaa marka iyada ayaad jeclahay seegina dhageysto waa tahay xamdi kuweyn kale inkastoo ay hadda fanka ka baxday bal hees kamida heesaheeda adoo noo soo qaadanayo oo barnaamijkana nagu soo gabagabeynaya asdhii kara waa su-aashii kugu dambeysay bal hal hees oo kamid ah heesaha xamdi kuweyn haddii aad ka yara garanayso dhowr eray nooga luuqeen haye jacaylo maxaad dhib keentay maxaad dadka kala dhantaashay maxaad niyad dhowrsanayd qalbiyo badan dhaawac yeeshay jacaylowey qalbiyo badan dhaawac yeeshay qofkaad ku dhacdaa ogsoone adoo dhagar qabe ku caana intaad cilmi dhex geysay sabab u ah dhimashadiise markay hodan kala dhantaashay maxaad cashaqo ka dheeftay axyaa cod ilaahay codka ku barkayaan ku dhihi lahaa dee cadowguna waa iska badan yahay ilaahay cadowga kaa qabto dejiyay haddii aan ku dhaho kole barnaamijkii guntii gabagabadiisii baan ku jirnaa su-aashii kugu adkeed is dhihi kartay su-aashani waxay su-aal adag oo barnaamijka intaan ku guda jirnaan ku weydiiyey su-aashii ugu adkeed waxa weeye jacaylka maxaad ka aaminsan tahay waa tahay dejiyay guntii gabagabadii baan ku jirnaa kelmadda ugu dambeyso aad dhahaysid maxay tahay asxaabtaada horta asxaabtayda aad oo salaamayaa aad ba ugu mahadsantihiin taageeraha aad siinaysaan waxaan leeyahay one love intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka caawan waxaa barnaamijka marti noogu ahaa walaashan dejiye xasan oo ah fanaanad Soomaaliyeed waxaa idinkaga tegaynaa aniga iyo dejiyaba barnaamijkan barnaamij lamid inta ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah